markii ugu horreysay bay waxay u direen waddankii nin aada u khibrad weyn oo ninkii hadda muxuu ahay walaalo uu ka sheekeynayay ah oo diblomaasiyadda khaasatan muxuu ahay qaaradda annaga aan ku noolnahay. Markii ugu horreysay waa safaaradoodii xamar intay u guurtay safaarad muxuu ahaa yacni shaqaynayso oo kumbilid oo xamar ku taala. markii ugu horreysay maaragtay USAID ay xafiiskeeda ka furatay. markii ugu horreysay mucaawinaadkii waddanka ay siinayeen ay 3 jibaareen muxuu ahay bilyan ay ku dhowdahay. marka intaas wuxuu ku darsaday waddankii inuu yahay waddan weyn oo noqday waddanka keliya hadda super power-nimada sheeganayo. marka proper representation oo dalkii u qalanta in halkaan laga sameeya ayay madaxdii go'aansadeen. safaaradda la furaya aad aragteenna taas ayay ka tarjumaysaa. anna waxaa ilaahay ka baryayaa in noqda xilkaa weyn ee lagu soo maaragtay inuu dadkan matalo lagu aaminay qof ka bixi karo ilaahay uusan ku caabaynin inaan noqdo. amiin. intaa la socoto waddankii dee waad ka warraysan qaarkiin baa taga qaarkiin baa cailadii iyo ehelkii baa jira waad la hadashaan qaarna mediaday kala socdaan. waddankii dowladnimadiisii muddada dheer maqnayd way soo noqotay. afar jeer baa haddeer madax isku bedeshay oo iyadoo dhib ka dhicin oo dhibaato dhicin oo xabad ka dhicin intii qof waktigiisii dhammaaday loo tartamay haddana qof kale tartiib uu ugu wareejiyay. dhaqan dadka ama geeska africa nagula nool ama dhinaca muxuu ahaay khaliijka dariska nagala ah dhaqan ay yaqaanaan maaha. waa dhaqan ay soomaalidu ku ammaanan tahay inay si iyagoo oo weliba dagaalka iyo duruufaha adag soo maray haddana si muxuu ahaa yacni nabadgelyo ah in ay baawarka ku kala maaragtay ku kala bedeshaan markii uu qof uu doorashadii u helo. taa waxaa garab socota dhismihii hay-adihii dawliga ahaa oo burbursanaa. xafiisyadii waxaan xasuustaa markaan xamar tegayay aeroboortka muqdisho wuxuu ahaa runway. maanta aeroboortka muqdisho waa aeroboor caalami ah immigration leh habeen iyo maalin shaqaynaya 7 muxuu ahaay diyaaradood oo kala duwana shirkadood oo international ay ka degaan muxuu ahaa dekadiisiiba habeen iyo maalin shaqaynaysa. dowladnimadii baa faaftay oo xamar keliya maahane gobolladii ku faaftay oo development iyo muxuu ahaay wanaag iyo amni fara badan oo ka socda. waxyaalaha muxuu ahaay horumarka laga gaaray waxaa ka mid ah muddo fara badan waxaa waddanka hortaagnaa in la helo askar Soomaaliyeed oo discipline leh oo asluubaysan oo waddankii difaacda. walilaahi alxamdu waxaa hadda jira askar tirsan oo wuxuu modern biometric uu yahay askariga iyo qoriga uu watay iyo magaciisa iyo wixiisa ay isku xiran yihiin oo maanta la dhihi karo muxuu ahaay Soomaali way isku halaynaysaa. insha allahu tacaala mar dhowna waxaa la wadaa muxuu ahaa waxaa la yidhaahda transitional plan oo ah in ciidamada Soomaaliyeed la tababarayo ay kala wareegaan ciidamada ajnabiga ee waddanka. askarigaas oo bishii markay dhammaato mushaarkiisu qof maxay ahayd yani aan loo marinaynin isaga toos ugu dhacayo akaanka ugu dhacayo. shaqaalihii dowladda ayaa iyagana sidaas oo kale ah oo ah shaqaalo walba qof walba oo shaqaalo ah bishii markay dhammaato mushaarkiisii oo akaanka ugu dhacaya. waa horumar dhinaca laga gaaray. dhinaca muxuu ahaa oo developmentiga ama horumarinta
dhaqaalihiisu waa xadidayn, laakiin haddana waxaa jira dhismayaal. Hadda waxaan bilaabanaya jidkii Afgooye iyo xamar, kii Jowhar iyo xamar, dekedii Hobyo intaan ogahay iyaduna waa la kala seexday, mar dhowba contracteed mar dhow ay iska bilaaban doontaa. Marka tallaabooyin horumarineed oo wadankii geesihiisa kala duwan, maxay ahayday from Boosaaso to Berbera to Muqdisho baa jira oo saa isu kala socda. Marka dadaal muxuu ahay runtii aad u fara badan ayaa jira. Dhinaca diblomaasiyaddu iyo xiriirka caalamiga ah, waddankeeni wuxuu soo gaaray level caalamka taqriiban siduu u dhan yahay oo cilaaqaadna la leeyahay. Waxaa yar maantay ma jiraan ma dhihi kara, laakiin waxaa yar waddan aan Soomaaliya aan safaarad ku lahayn. Waxaan ka nahay yacni xaalad firfircoon aan ka qaadanayna axwaasha wadamada deriska nala ah sida Geeska Afrika oo kale. Maxay ahayday maantay yacni ma nihiin dad loo taliyo oo, laakiin dad fadhiya meesha lagu taliya ayaa nahay. Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti markii la hadlayo, Soomaaliya meesha miiska wax badan baa miis maxayna loogu talinayo u jiri, laakiin hadda miiskii ayaan fadhinaa oo ra'yigeennii iyo waxtarkeennii uu ka muuqda. Marka wixii la rabay oo dhan iyo wixii waddanka uu mudnaa miyaa la gaaray? Mana dhowaa. Wax badan baa runtii ayaa inoo dhiman. Waxaasna wax badan oo ka mid ah dadka laga doonayo waa dadkiinaas. Waxaa looga doonayaa dadkiinaas, waxaan ka rabnaa horta midnimo, inaad midoodaan. Idinkoo ku midoobayo Soomaali inaad tihiin ood isla dhalateen ood ehel tihiin oo waxaad tihiin oo idin kala maarmin keliya maahe, inaad aragteen mujtamac midabo kala duwan leh, diimo kala duwan leh, afaf kala duwan leh, meel ay ku wada nool yihiin oo waxa guud ee ka dhexeeya ilaashanayaan, si magaaladan iyo meesha ay joogaanba ay nabad u noqoto. Dhaqankaa aad barateen inaad wadankii ku celisaan, oo maxay ahayd la yiraahdo hebel iyo idinku haddaad kala ra'yi duwan tihiin, haddaad kala reer tihiinba magaaladan idinka dhexaysa ood ku noolaan kartaan. Waxaa laydinka baahan yahay sidii dad fara badan ba ay ka dhawaajiyeen, xirfadda aad barateen ama dadka halkan jooga ay barteen, ciddii awoodo waddanku aqoon inay ku celiso ay kula noqoto oo muxuu waxay ku kordhin kartaan, ama ha ahaato waqti yaroo gaaban oo qofka tago hadday ka go'do, ama hadday meesha muxuu ahaay intuu u noqdo wixiisi inuu gaarsiin karo. Waxaa kaloo laydinka rabaa lacagaha faamilada aad u dirtaan oo xawaalada lagu diro oo biilasha ah oo muddada aad u fara badanna aad dirayseen, waa wax fiican. Laakiin waxaa laga rabaa wadankii inaad maalgelin ku samaysataan, lacagaha aad muxuu ahaay haysataan in shaqooyin lagu abuuro oo wadankii aad maalgashi ku samaystaan, inaad kambaniyada waaweyn ee magaaladan ku yaala aad ku dhiirigelitaan oo u sheegtaan fursadaha Soomaaliya ka jira ee maalgashiga ah, ee kalluumaysiga ah, ee macdanta ah, ee batroolka ah, ee xoolaha ah, ee beeraha ah. Waddankeena ka jiraan daha fursada halkaas ka jirta wadankay muxuu ahaay maalgashi aad ku samaysaan, u sheegtaan. Sababtoo ah Soomaaliya qofku markuu maqla dee meel baas oo la soconayo oo dhibaato ka taagan tahay waa laga yaabaa inuu muuqdo, laakiin idinka ambaasadoora ah intaanan annaga imaan oo ninkii iga horreeyay uusan imaanin ambaasadoorada ahaydeen. Ambaasadoornimada inaad sii wadaan. Waxaad ambaasadoor u tihiin waddankiinni, waxaad ambaasadoor u tihiin diintiinni iyo dhaqankiinni oo xijaabkaas quruxda badan aad
boqol ummadooda weligood baan diin arag aad la dhex saa u dhex maraysaan leeyo waxay qoftaan wax xeeran iyo waxaas waa dacwo wey. marka waddanka waxyaalaha dhaqaale la-aantiisa heerka uu jooga gaarsiisay dagaalkii Yemen. dagaalka qayb buu ka ahaa, nabadgelyada la-aanta qayb bay ka ahayd, laakiin qaybta ugu weyn waxa weeye waddanka dayn baa lagu leeyahay. waddana mar haddii dayn lagu leeyahay waxa weeye waxyaalo fara badan oo uu xaq u yeelan lahaa buusan helayn. cid hadday lacag ku siin lahayd kuma siin karto. cid hadday muxuu ahay waddankaada company intuu tago uu maalgashan lahaa kuuma sameynaya, sababtoo ah combanygii wixii riskiga ka ilaalinaya waddan dayn lagu leeyahay hadduu aado ma helayo, marka si uusan mushkilo ugu dhicin halkaas ka taagnaanaya. haddaan dayn qaadan lahayna dee qof dayn lagu leeyahay dayn ma siiso. waa bad creditka muxuu ahay waddankiina qofka markii uu yara haysato oo kale waxaa lagu yiri waa dhibaato wey. qofkii hataa gabdhaha ma guursadaan iska fiiriyaan. marka dayntii marka muxuu ahaa waddanka lagu leeyahay, dowladdii waxay tiri war dayntaana laga cafiyo, shuruudaana la hordhigay. waxaa la yidhi hadaad rabtaan in daynta laydinka cafiyo 1, 2, 3, 4 sameeya. 1, 2, 4 wixii nala weydiiyey baan si fiican usoo sameyn. kadibna waa la isku soo noqday, ra-iisul wasaarihii baa wuxuu yimid halkan October. hay-adihii lacagta nagu lahaa iyo dowladihii nagu lahaa buu la shiray. wasiirka maaliyadda yimid, gudoomiyihii bangiga dhexe yimid. war wixii aad lahaydeen soo sameeya waa soo sameynay, lacagtii naga cafiyey. meel fiican bay wax idiin marayaan, laakiin lacago qaraamaad oo hay-adaha caalamiga ah laga tirsan yahay contribution baa la bixiyaa. contributionkiina maadaama waddankii u burbursanaayo dowladda aysan jirin wuu nagu batay, markaas waxa fuulay interestka, markaas wuxuu noqday sidii boqolaal bilyan. marka waxaa la horta contributionkii laydinku lahaa waa inaad keentaan intaan loo dhaqaaqo. ra-iisul wasaare isagoo meesha jooga uu orday kan samee inta samee wixii oo ahaa contributionkiina isagoo oon magaaladan Washington DC aan ka bixinayo wuxuu manage gareeyey intiina la helo. hadda marka waxaan ayaga ka rabnaa inay dayntii bilowga sanadka soo socda sida ay yidhaahdeen ama aan annagaba rabno inay dayntii cafiyaan. reer America Soomaaliya waxaa laydinka rabaa, Amerikaanka dadka lacagta ugu badan ugu leh ku jiraan. waana dowlad tun weyn oo waxaan rabnaa wadamada kalena inay noo yaro bloojiyaan ay dhahaan Soomaalida daynta ka daaya. dowladdii waxbay nala wadaa, wasaaraddoodii maaliyadda, wasaaraddii arrimaha dibadda waa si fiican bay noola shaqeynayaan, waxbay nala wadaan. laakiin waxaa la yidhi waxa ayagu awoodoodu waxay ku xadidan tahay in congress la yidhaahdo oo baarlamaan oo aada u dirsateen meesha la yidhaahdo guriga baarlamaanka waa in uu wixii ogolaado. waxaan idinka rabnaa xildhibaanada aada magaaladan ka doorateen inaad intaad u tagtaan aad tidhaahdaan waxaan doonaynaa inaad taageertaan dayn cafinta Soomaaliya, oo kadibna state departmentiga iyo treasuryga iyo wixii intay isla fariistaan la yidhaahdo Soomaaliya wixii lagu lahaa congress haddaan nahay waan ogolna. waxa kale oo laydinka rabaa waddan kastuu dowlad u noqdo oo awood u yeesho oo difaac u yeesho oo dadka muxuu ahay dambiilayaashu isaga celiya waa in askar la helaa. askartan waa inay heshaa qalab ay ku shaqadeeda ku qabsadaan. qalabkii baan la nahay oo waddanka cunaqabatayn lagu basaaray 93 baa la saaray. marka waxaan nahay dad ayagoo u gardaduuban la leeyahay wax iska celiya. adoo gardaduuban waxba iskama celin. sidaas daraaddeed
wiilashayadu markii ay baxaan oo ay muxuu ahay nimanka criminalska ay caysadaan oo miino loo dhigo gaari ka celi miinada markay qaraxdo celiyo ma haystaan sababta cunqabateyn u baasaar marka miinadaasa ku qarxayso halkaas ay ku dhimanayaan waa ciidanka ajnabiga waddanka joogo waa uu hubka qaraxa iska celiyay ayay saaran yihiin hadduu qaraxa xataa waxaa laga yaabaa janis inayna waxbana gaarin inay aad u weyntahay laakiin kuwa nagi meeshay ku dhintaan un marka sectionka labadii sanaba marka waxay tiraada soomaaliya halkaas ha loogu daro 2 sano oo kale hadda mar dhow oo isbuucyada laga jooga waxay noogu dareen 2 sannadood waxaan idinka rabnaa dowladdiina iyo xildhibaanadiina intaad u tagtaan inaad tidhaahdaan taageera Soomaaliya cunaqabateynta hubka in laga qaado yani aan u helno awood aan waddankaanaga aan ku difaacan karno haddii Amerikaanka uu UN Security Councilka go-aanka uu isaga qaatay ku khasban yihiin inay kacaan hadduu vitoobana sharciga ma ka dhamaanaysa marka reer Seattle Washington iyo reer America isku xirka safaaradda iyo dadka iyaga waddankan degan wuxuu furo u yahay kow cilaaqaadka labada waddan oo aada u wanaagsanaa wuxuu furo u yahay dowladnimada Soomaaliya oo hoosoo degdegta wuxuu furo u yahay welwel fara badan oo qaarkiin hayo oo ah xarunta maxaa laga yeelahaya oo xaggay aadahayaan oo xaggeen geeya oo dadkii mar waddan u guur mar waddan kale u guur mar waddan kale u guur in intii laga baxo waddan degan oo markii haddii xataa uu qofku uusan dan kale ka lahayn reerkiisii iyo muxuu ahay carruurtiisa uu holiday u geeyo way kusoo nastaan oo waxa negative-ka ah boosh xun aan ahayn oo waddan hagaagsan oo nabad ka jirto in la hela ayaa soo degdegay marka waa aan wada shaqayn wixii macluumaad ah oo ku saabsan baahida jirto maxay tahay maxaa la qabtaa xaggee wax la mariyaa safaaraddii inay mar walba idinla wadaagto informationada waddanka ka jira ay idinla wadaagto ogaadana waa sidii dadka walaalihii hore u hadlay ay ka dhawaajiyeen safaaraddu waddan Soomaaliya la yiraahda ayay u furan safiirkana wuxuu matalaa waddan Soomaaliya la yiraahdo markaan diblomaasiyiintii dowladaha la kulmayn reera kama sheekay waxaan dhinaanaa waddan Soomaaliya la yiraahdo oo kan saasa baahidaa ka jirto waxaas ka jiraan dhibaatadaas ka jirto wanaagaas ka jiro waxaasaan ayaan matalnaa kaasna cidii oo dhan baa ku jira dowladihii yaryaraha ay samaysteen baa ku jira baa ku jira marka hoy Soomaaliyeed oo halkaa ka furan oo idinka aad leedihiin karaamadiinii iyo sharafka aad leedihiinna mateli kara ayaan insha allahu tacaala inu noqdo aan ka shaqaynayna waxaad ogaataan qofka rabaa inuu success gaaro marnaba expectationkiisu kuma jirto isagoo isku hurto inuu success gaaro qofka Soomaaliyeed inteena halkan joogta ama inta naga maqanba waxay aada u jecel yihiin in karaamo iyo sharaf iyo ixtiraam la siiyo waana mudan yihiin laakiin karaamo iyo ixtiraam iyo sharaf kala qaybsanaan uguma gaara midnima lagu gaaraa waxaa lagu gaaraa si aad ilmahaada uu xoroobo oo sharaf iyo karaamo ugu noolaado kan yaro walaalka ee aada qaraabada tihiin
waqtiga ay diintiina isgarab fadhidaan isu dulle si loo xoroobo oo loo hagaago. walaalayaal waa hadalkan ku dheeraaday. aad baad u mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad soo dhaweynta aan muxuu ahaay aniyo waqtigayga aad soo dhaweyseen. ma noqon doonto markii insha allahu tacaala ugu dambeysay un aan meesha nimaadno oo kusoo noqon doona iyadoo waqti fiican la hayo oo muxuu ahaa xaafadaha aan kasoo runayno aan kasoo ducayno insha allahu tacaala. MashaAllah, thank you so much. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay Ambassador.